waxaa laga yaabaa inuusan jirin markhaati ka weyn guusha Google oo noqotay mashiinka ugu weyn ee wax laga baadho dunida. mana u malaynaya daawada inay ku soo martay maalin aadan isticmaalin adeeg uu leeyahay Google. muuqaalkan maanta waxaynu kaga hadlaynaa sidee lagu xaqiijiyay guushan aadka weyn. si aynu u bilowno, subscribe saar channelka, like-na saar muuqaalka, lana wadaag asxaabtaada. sheekada Google waxay bilaabantay sanadkii 1998. Larry Page iyo Sergey Brin. Larry Page wuxuu iska diiwaangeliyay jaamacadda Stanford ee California. Sergey Brin wuxuu arday ka ahaa isla jaamacadda, waxaana loo xilsaaray inuu caawiyo ardaygan cusub ee Larry Page. kadib waxay wada degaan hal qol. muddo kadib waxaa dhex maray saaxiibtinimo iyo iskaashi. waxayna shaqadeeyeen mashiin wax raadin, waxayna u bixiyeen backrub oo ah erey xisaabeed oo la micnaa marka hal ay ka dambeeyaan 100 eber, taasoo ay u soo qaateen si ay u muujiyaan in aaladda Google ay awood u leedahay inay soo saarto macluumaad aad u badan. dhowr sano kadib, Google wuxuu caan ka noqday jaamacaddii ay dhiganayeen. Google keliya ma uusan soo jiidan dareenka ardayda, sidoo kale wuxuu soo jiitay maalgeliyayaasha. maalgeliyaha Silicon ayaa u qoray sheeg $100,000 ah Larry Page iyo saaxiibkiis. maalgashiga kadib waxay awood u yeesheen inay hagaajiyaan booskii shirkadda, iyagoo ka guuraya kolleejka uuna wareegaya xafiiskoodii ugu horreeyay, soo ahaa geerash ku yaala xaafadda Menlo Park oo ay lahayd Susan Wojcicki oo ah madaxa fulinta qaybta YouTube-ka. xafiiska waxaa lagu qalabeeyey kombiyuutarro iyo qalab kale. bilowgii shirkadda, hawshu waxay ahayd mid aan caadi ahayn ilaa laga sameeyey seefarkii ugu horreeyay ee Google. shirkaddu si dhaqso ah ayay isku ballaadhisay, waxaana la shaqaalaysiiyey injineero. Google hadda wuu ka weynaaday geerashka, waxaana loo baahday xafiiskan ka weyn. ugu dambayntiina waxaa loo raray xafiiskiisa hadda oo ku yaal Mountain Views ee California. Google waxay si rasmi ah masraxa hal-abuurka u soo fuushay sanadkii 2004 oo ay ka mid noqotay mid ka mid ah shirkadaha warbaahinta adduunka. waxay qaaday tallaabooyin cajiiba shirkaddani, iyadoo sanadkii 2002 soo saartay Google News, Gmail 2004, Google Map 2005, Google Chrome 2008 iyo shabakadda bulshada ee Google Plus 2011. la xidhay 2019 bishii Abriil. Google sanadkii 2015 waxay noqotay shirkadda ugu weyn shirkadaha haysta Alphabet. Google waxay hanti aad u badan oo digital ah ka sameeyeen Cost by Click AdSense oo shacbiyad aad u badan ku soo xidhay, kaasoo suuragelinaya qof kasta oo website leh inuu lacag ka abuuro. sidoo kale waxay ikhtiraaceen barnaamijyo maaliyadeed oo ay ka mid yihiin Google Blogger iyo Google Finance. Google waxay wax soo saarkeeda gaadhsiisaa malaayiin isticmaalayaal ah adduunka oo dhan, sida YouTube, Android iyo Google Search. shirkaddani waxay beddeshay noloshii aadamaha iyo fikirkiisaba. haddaba daawade, ma suuraysan kartaa siday ahaan lahayd noloshu maanta haddaysan jirin shirkaddani? Google waxay heerkan ay maanta taagan tahay ku soo gaadhay isbeddel iyo hal-abuurnimo. daawade, marka si loo fiiriyo guusha, way fududahay inaad gaadho, laakiin waxaa adag inaad booskaas ilaashato. dambayn waxaynu soo gaadhnay dhammaadkii muuqaalka. haddaba daawade, nagu dhiirigeli inaynu soo saarno muuqaalo noocan oo kale ah, adigoo subscribe saaraya channelka, like-na saaraya muuqaalka.